السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيارتك كسو دوادا سامينا يوتيوب بيج مانتا لبا خلط oo waxaan suubi aan loo baahnayn. maanta suuq waa ii fiicnaa inkastoo shaqada early intaan ka baxay oo hadda intaan soo noqday baa haddana waxaan arkay saamiyadii ama sheerarkii aan gadanayay mid ka mid ah kambanidii aan gadanayay sheerarkooda mid ka mid ah oo aan uga haray around $4 uga haraan filayaa hadda markaan soo noqday oo aan fiiriyay wuxuu marayay $10 uu gaaray so $6 oo up momentum ah baa i dhaafay alxamdulilah abaa $3,900 subiyey inkastoo maanta markii ugu badneed aan gaaray $6,337 laba mistake baan subiyey oo aan loo baahnayn laba mistake-na labada khaladna waxaa igaga lumay liga ceshaday lacag dhan meel 2,500 almost baa igaga luntay laakiin alxamdulilah 3900 baan kala tagay suuqa aad iyo aad buu fiicnaa waxaan gatay SPI company loo sheeray simbolkiisu yahay OBGLN baan gatay oo ka faa'iiday labadaba ka faa'iiday CLBS oo baan gatay lafarkiisu waa ka faa'iiday MYT baan asagana gatay asagana waa ka faa'iiday kii ugu faa'iido badnaa wuxuu ahaa CLBS waa $3,900 buu ahaa $3,090 $1,000 waa laga ceshaday waxaa kaloo jiray OBLN oo sana aad u fiicnaa waa sana $1,400 laga ceshaday oo aan $2,257 faa'iido marka misteegyadii anaan intusan rabaa misteegyada loo baahna ma ahan haddaan hadda jaartkan eegno sababta ugu qasbaysa meesha ugu koran gato maysan jirin sababta ugu qasbaysa inaan gato $4.83 waaye halkaas baan la eeganaya ilaa $4.83 baan gatay meeshaan ku gatay meel I don't know what I was thinking maybe waxaase meesha lacag fiican subiso maantana way kugu jirtaa camal carelessnimaan ila noqotay calaa kulli xaal aqoon dore igama ahayn xoogaa carelessnima i qaaday adidaas warareys xoogaa careless baa noqday carelesskaasna dharbaaxadii igu horeysay oo tanay noqotay warningkaana kamaan faa'iidin oo haddana I don't care baa iri markaan soo noqday oo OBGLna waxaan ka faa'iiday haddana mar saddexaad baan kusoo noqday markaas baa haddana $1,400 iga noqotay halkaasna shaqada kusoo gabagabeeyey marka halkaan sababta ugu gatay aniga ma sheegi karo mistake bay ku yimid markaan gatayna waxay ka bacdeen u sababta ujeedaa hoos buu aaday marka ma ahayn inaan gato ma is ahayn mistake happen staaga ciidan mistake aan ku subil ma jiro mistake oo kaa dhacaya waa imaanayaa waa part of the business hoos dhacas ku yimid maba kasoo kabsanba waa $3.41 maraya waqtigan xaadirka oo saacadda ay tahayna 2:19 PM marka maba uusan kasoo kabsan marka I'm glad inaan mataqaana markaas lagu dhuftay dharbaxada amar dambe aan ku noqon laakiin maanta waa u fiicnaa maanta aad buu u fiicnaa ilaa halkaas buu gaaray hoos buu kasoo bilaabmay aniga waa ii wanaagsanaa maanta hore sababtaasaa keenaysa inaan ka suubiyo $3,900 in the beginning waan saacadda ugu horeysa taag u furnaa waa suuqa intuu furnaa saacadda ugu horeysa waaye aan faa'iido inta ka suubiyey having said that let's take a look the other one okay, let me play the video so you saad u aragtaan cilada meeshaan gatay iyo qaabkiisa ahayd
fadhiya 483 meel qadru qaadaya yaas stable noqon waayo I think it's hoos baxaya it's just I think get waxaan filayaa weeks noqonayo waa hoos baxaya $1,000 baa iga dalkaas $180 but I'm still good shape of $5,000 one single day بعد مرة so that's exactly waxa uu dhaca waayo meel khaldan baan ka gatay sida chartki hadda ku cad yahay meesha ugu koreysa ma ahayn aan ku gato big mistake baan suubiyay big mistake baan suubiyay inaan sugo ay ahayd oo aan xogaa patient suubiyo oo mantaqaana wax kala qabsado ma taas ma dhicin qadar rabbi waaye kii ku xiga daan fiirino oo aad fiicnaa maanta gelinka dambe oo lagu magacaabo OBDLN halkaas waxa u jeedaa $10.78 uu gaaray $10.78 ayuu gaaray anigana waxaan uga baxay $3.95 here $3.95 baan ugu tagay saacadan waxay about 9 AM ya sarkici baaxad wuxuu bilaamay adib بعد نص ساعة كبعد شغل ما كبحي بو سركع وبنا بلام سركع وبنا مركز أيوب بلامي وحو بلام سركع عيسي مكان شغلة كبحي البحر يقول عليه about 9:50 about 9:50 AM 10:50 AM ساعة نيويورك Minneapolis 9:50 AM بو بلامي مركا that's exactly what happened that's $4.49 يكون بلامي سركعيسي وفعنا وان إيه كرو everybody ومكا انت سجلين كري لكن قف وكا بلاوي كرو resistant كا مكو دافو 427 بو كوكلي كري because waxaan dhihi karnaa area dan consolidation ay suubinayay marka areadan waa qofku ka joogi karay laakiin markuu arko inuu resistance-gan ilaa halkaas ugu dhaafay waa saas meesha bartas ka bilaabatay that's exactly what it start saacadan waxay ahayd markaas saacadan niyaga waxay ahayd markaas around 9:50 AM that's time 9:50 AM ahayd anina shaqada waxaan uga baxay around 9 baa uga baxay aniga shaqada markaas halkaas marka shaqadan waxa ku nacsiinaya marka aad meel khaldan intaa ka gadatid aadana akanidi jabtid waa iskaga baxaysaa markaas laakiin waxaa laga yaabaa momentumka xoogs inuu soo socdo marka muhiim waa inaad aadan degdegin tana waa tii oo kale oo sabab oo gatay ma aysan jirin move kan baan ka helay waa fiican tahay anyway khalad baan suubiyay halkan it's just another mistake it's a clear mistake culus baan suubiyay resistant ka gudbaayay baan isleeyahay gudbaaya extending waxoogaa ka sarakac badan uu suubiyay intaan xisaabta waxaan ku darin inuu pullback imaanayo intaas uu kacay baan xisaabta kuma handarsan oo just waxaan xisaabta ka bilaabayba resistant u dhaafayaa gal because dadweynaha lacagta ka suubiyay ka mid tahay la xisaabtan kan inuu pullback u baahan yahay oo muhiim tahay maan ku darsan pullback waa uu suubiyay haddana kor buu aaday haddana buu suubiyay kor buu aaday haddana xogaa uu suubiyay kor buu aaday haddana waa kana every time markuu meel kasoo soo gaaro pullback buu suubinayaa wuu soo noqonayaa u-turn buu suubinayaa kulli da fiiristaas waa inoo pullback buu u baahan yahay cabaar kor aado taasaa anay dhaaftay oo aan kuma aan darsanin
marxaladda kuma aan darsanin inuu bullback subinayo. Let's play the video ayadana. 395 aan gatay aka hadda so 395 baan click kusii gatay. waa picture-ka waa u jeedaa inuu bullback u baahan yahay xoogaa kor aaday laakiin way dhaaftay marka way dhaaftay way hoos baxday. This what happened marka 395 u gatay rejection-ka waa ka maqan sanado marka last year have a good chance inuu gudbo. waan dareensanahay hesitationkii oo u jeedaa laakiin 5,000 oo meesha ku qoran baa jeedisay attentionkii u jeeda waxba u jeedaa laakiin this is I make 5,000 waxaas leeyahay waxa wadda lumaan kun ilaa isla big deal. That's another mataqaana maxaa iga sii noqday anyway 395 u fadhiyaa waa ka boodi la'ahay weli waa ku dhex jiraa inaan booda eed mar hore. Now I can risk more money because I don't have $5,000. You see what was saying? Yeah, that's exactly what happened. taasina subay ma ahayn adeegna subay ma ahayn khalad weyn bay ahayd. hadda u jeeda inaan ka baxeed this time khaladka waan subiyey. this time that's resistant waxa way adag bas leeyahay full dollar $4 inuu gudbo rabaa always markuu mataqaana full dollar uu gaarayo waxa way dhibba timaada. So marxaladda oo dhan waan ka warhayaa oo anyway ala kulli xaal mistake-gaas baa iga dhacay wax baan u jeedaa dollarka half marka $1 buuxsamaayo oo for example $3 intuu ka dhamaa 4 galaayo always ama $2 ka gudbaayo $3 galaayo adi $1 to another dollar ku gudbaayo xogaa way adag tahay. Resistance fiican baa ku jira areas also 50 cent markuu gudbaayo any kind of 50 cent $52 53 50 whatever 50 cent wato half dollar or $1 baa la waa dhib badan tahay. waxa dhan I was aware of waa u jeeday bullback buu u baahan yahay waa u jeeday extended waa wax buu u jeedaa laakiin this is I can see the 5,000 on my left side. That's the what happened. taas baa anigu khalad ku suubiyey oo aan u jeeda aan leeyahay isla big deal laakiin is big deal. وانا dhihi karaa okay xalaal عليك aan ka boodi karaa asoo صباح كون 400 دقيقة ونطي asoo صباحي meeqa amaray 3,000 meeqa waay 900 amsi كل شيء 3,900 shaqadaas ka baxay hadda marka last two time lacag way runta marna $1,000 actually my marna $1,000 meeheed haddana lacag baan suubiyey faa'iido helay haddana ku noqday hal mar oo gelina u dhaxeeyay laakiin two times oo lacag badan baa iga luntay $3,907 baan kala tegayaa suuqa maanta mar baan gaaray $5,000 wax la jira laakiin ma aysan noqonin. anyway taas war habin laakiin tan ugu fiican waxa bal jaarka bal soo qurux badan fiiri inaba caadi ma just beautiful waxa waaye
meeshaan cid walba lacag ka suubi kartay anybody oo chartigii wax ka yaqaana waa easy money. It's easy money. Look the volume-ka markaa shaqada ka baxay su ahaa iyo markaan after shaqada ka baxay markay before aan shaqeynaysa ahayd iyo markaan shaqada ka baxay volume soo kordhay fiiri volume soo badan dadku way soo badan shaqada way soo badan la gadanayo it's just jam inna caadi ma wala buuxa anyway hada waa $8 maraya it's just I wish aan joogi lahaa 10 kun ka soo bilaa kan easy قربوا صعوبة إنه بعد anyway على كل حال الحمد لله 39 أو 7 مع انتصاص بإيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.